ciidamada waaye madaxweynihii meelo kalena waa u dhagan nuglaayeen saddexdii sano oo ka dambaysay oo aniguna aan joogay sidii oo kale amar qaadasho iyo kala dambayn ma dhicin isla meeshii hore ayay ka amar qaadanayeen haddana waxaad moodaa marka dastuurkii laftarkiisii kulligeen inaan jabinay maalintii lay dhaarinayana waxaan iri haddaad moodaan dhaartu kaliya inay qabanayso haddaa ila shaqayn weydaan idinkuna waad qabanaysaa sababta waxaa weeye jufo walbaaba ciidankeedii gaari u daysay maamulkii haddaan dhaqaalana lagu wareejin amnina lagu wareejin waxa uu weli karaahay maxay noqonaysaa marka hadda marka waxaan leeyahay madaxweynaha kale oo hadda xilka la wareegaya waa nin aqoon-yahana waxa weeye muddo dheerna inaad garanaysaan aqoon fiicanna u leedihiin aan u malaynayaa kuwii muddada dheer lugooyada iyo majaxaabada 90kii laga soo bilaabo ilaa maanta nala daba taagnaa haddaad tiraahdaan waxbaan u dhiibanaynaa waa waali sheeko yar oo la sameeya waxay leedahay dad baa dhulku la go'ay sidoodii u noolaayeen waa indha beelaan keliya dabka iyo godka waa ku dhacayaan baabuurkaa dardaraya marka nin indhalaha u tegay markaasuu damcay inuu kii god ku dhacaya iyo kii baabuur dardarayaba uu ka joojiyo cabsiyaa kusoo korortay marka war maxay tahay waxaan cabsidan iyo weelkaan nagu soo kordhay oo miyaadnaan ogeyn nin laba indhood lahaa noo yimid ninkii waa loo yeeray annagu waan noolaynaa la yidhi qofka dhimanaya ma aanaa ogeyn inaan dhimanaynana ma aanaa ogeyn waxaan aad noola timid maxay tahay weelka iyo cabsida ah sidaa darteed waxaan garanay adigana labada indhood inaan kaa ridin haddii qofkii yimaadaba labada indhood laga ridaayo kii majaxaabada waday oo dhibka waday oo yidhi ma dhici karto galmudug inay la yidhaahdo waxa la yidhaahdo inay dhisantana loo sacabatumo waa musiibooyinka adduunka jiray ka mid tahay saddex qolo ayaan u kala saaray qolo jufa madaxa ka martay oo ku taageeraysa kuwaas qolo cabsidaa ku jirta sida weliyaasha hadda la cabsiyoo kale oo imaan waaye meesha waan ognahay weliyaashii waa loo hanjabay waa la garaacay waana imaan waayeen qaar la soo wakiishay hadda u badan yihiin waxa meesha jooga qaarna lacag ayaa lagu leexiyey marka haddii dantii guud maslaxaddii ummadda loo daayo cabsi iyo danaysi gaara oo hunguri ah iyo jufaysi xaggee gaaraysaan marka waxaan hubaa shacbigiina hadda halkan fadhiya iyo inta idinka maqan tirada dadka inaad idinku leedihiin bulshada badideediina inaad idinku tihiin laakiin xaqii baa laydinka leexiyey oo laydinku dulmayaa oo aad madaxa wada hoganaysaan 6 sano kafaaya wey ma dhici karta ka badan inaad sii hogataan haddaad hogataanna waxa weeye dulmi dadkiisoo dishaa idinka idin gelinaysaa ogaada marka waxaan rabaa idinkoo iga raalli ah galmudug ha ogaato hana kala saarto hana weydiiso dadka daacadda u ah galmudug iyo dadka ku shaqaynaya dulmiga iyo daacaddarrada
inaydnaan mudug waxaa lagu tilmaamaa meesha dulmiga ugu badan iyo xaasidnimada laakiin waa dadku waa ka waantoobi waana ka bixi karaan haddii ay mudug waa weyn tahay waana ballaaran tahay waana kala qaybsan tahay marka in waxa wanaagga la iska qaato waxa dulmiga ana la iska reebo ayaa la qaataa idinna wanaagsan aakhire iyo adduunba aan ku noolaanaynaa warka aan jeclahay inaan sheego oo taariikhda iyo wixii la soo maray waqti uma helayno balse waan qori doonaa wixii aan soo marnay dulmiyada ugu daran nin la yiraahdo Allah u naxariista gargarata wuxuu dhihi jiray culimada Allah hanuuniyo macnaheedu hadday culimadu toosto isku xiran tahay dadkana waxaa way ka adkaanaysa culimada qaarkeed meeshii ma la yiri masaajidkii loo carin lahaa asagayba qaylada ka yeertay ayagiiba qaylada ka timi qaarkeed waxaa soo haray nabadoonnada maanta noo jooga waa garanaysaan hadda 3 bilood waxaan raadinayay in inta la isku yimaado si aan xilka u wareejiyo si sharaf leh oo la isku tanaasulo oo la yiraahdo ama qofkaas aan u wada garanay ama doorasho cusub aan wada galaynaa ayaan raadinayay intii aan ka shaqaynay galmudug 6 sanadood waxaan jeclaa inaanay 2 qofood isku dhicin mana isku dhicin alxamdulillah marka taasaan u raadinayay inaan helno xal wanaagsan oo xilka lagu wareejiyo odayaashii badankoodii oo kala qaybsan ayay ka hirgeli weyda arrintaasina hadda waxbaa dhacay dariska ha noqoto iyo gudaheennaba ha noqoto in aysan dib dambe u dhicin inaad iska qabataan oo ka waantooyaan dhiig dhexdeenna daata iyo dariskeena oo sida aad ognahay hadda hadda wixii ka dhacay oo kaleeto inaan dib dambe aysan u dhicin ayaan ilaahay ka rajaynayaa gacmihiinayna ku jirtaa ilaahay ka sukooy waxaan leeyahay marka haddii sida aan u aragno qaanuunka iyo sharciga galmudug waxaan ilaaway dad aan leeyahay waa aqoon-yahanadii oo aanan aqoontooda aanan dafiraynin ayaa aniga ila hadlay markaan qoraayay warqadda ah waxaa iskhilaafsan nabadoonnadii maamulka madaxda sare ee baarlamaanka iyo maamulkana khilaafbaa ka dhex jira road mapkii Addis Ababa markaan u soconay ahayd ayadana kama maarano khilaafkaa jira iyo inta aan road mapka ka soo laabanayo guddi lama dhisi karo cid aan u wakiishayna ma jirto raggii ilahaa jooji warqadaas ha qorin oo aan irin ma khilaafkaa rabtaan in la isku dilo oo uu sii socdo ayaa haddana guddigii la yiri waa la magacaabay intaan maqnaa ee sharci darrada ahaa yiri annagaa ka mid ah haddii marka aqoon-yahankii haddii culimadii haddii nabadoonnadii ay wax wada galaan yaa reerkan dejinayo dhisayo waaye marka ilaahay marka waxaan ka rajaynayaa ilaahay diyaar waxaan u ahay inta aan noolahay inaan galmudug la shaqeeyo aniga iyo madaxweynihii iga horreeyay kalsoonaan iga dhexaysay saaxiib baan ahayn ilaa iyo haddeerna waan nahay waan wada soconnay shirkii ugu dambeeyay London ka dhacay waataan wada tagnay inaan waxaan rabaa nin kasta oo xilka si u qabtay si xilka aan ku wareejinayo inaan sidoo kale u wada shaqeynaa hadalladii way ugu dheeraadeen mana mari karo wixii taariikh ahaa oo aan jeclaa maanta inaan soo maro marka walaalkay professor
محمود عبد علمي أيام يريا أو أن ربه إن ما أنت هرتينا أو حلك كل وريقه هل كان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن حين يا مركع مركع أيوه وهرتينا دوكيمنت la qoray iyo documentuna waa qoray yahay wuxuuna waajibaan taagan oo joogto hortay haddii ku wareegto ayada xalaala waan mahadsantiin sida arkaysan madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug doctor maxamed cilmi waxaa xilkii ku wareejinaya madaxweynihii hore korneyl axmed caalin marka waxaa leenahay waa sharaf bay noo tahay ammaan bay noo tahay in si sharciya madaxweyneyaalkii u kala wareegaan waafaqsan isla markaasna caalamka dastuurkiisa waxaa leenahay marka reer galmudugow waana lala hadlay horena lala hadlay haddana madaxweyne waa nala hadlay waxaan rajaynayaa insha allahu in aanu qaadino wixii dhaliila inaan iska moosno wixii wanaagana horumargu kacno isla markaas aan kusoo dhaweynaya makarfiinka madaxweynaha sharciga ah oo galabta xilka la wareegay doctor maxamuud cabdi cilmi professor kusoo dhaweey shacabkaagi dalkaagi iyo mahadsan بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وجيلان شيخنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلهي بقى مهدنا فأولنا هدعلنا يا مدحوين محمد أحمد عالم وأم هدعلنا يا dadweynaha sharafka leh oo culamaa udiin muxuu ahaa haweenka dhalinyarada ciidamada abaabulka maaragtay mas-uuliyiinta golaha baarlamaanka iyo maaragtay wasiirada mas-uuliyiinta kala duwan howlwadanada galmudug state abaabulka kala duwan ay galeen waan uga mahadcelinayaa shaqada fiican ay qabteen aniga halkaan uma istaagin inaan wax badan ka dhaho waxaana sugaysaa insha allah dhismihii dowladda inaan ku dhawaaqno waxaana sugaysaa inaan programkii dowladda aan soo bandhigno ayaana sugaysa waxaan rabaa laba arrimood inaan xuso keliya waa marka koowaad waxaan rabaa guddigii doorashada sida warbixinta guddoomiyaheeda uu halkan kaga akhriyay mudane taaliif yacni inaan madaxweynaha u sheego caalim shaqo dhib badan waqti dhib badan ayay maaragtay soo qabteen marka waxaa laga rabaa muwaadiniin kastana in marka ay ka shaqaynayaan howlaha ilaahoodana fiiriyaan dadkoodana u turaana la rabaa guddigaas waxaan aaminsanahay xaalad dhib badan inay ku shaqeeyaan sida ugu macquulsan oo ugu dadaalka badanna natiijo inay ku gaareen waxaan rabaa inaan dadweynaha galmudug ku sheego shirkii hadda markii aan xamarka imaanay socdaalka laba saddex ka hor wixii aan ka sheegay intaan ka sheegaya waxaana weeyaan galmudug madaxweyne caalim intii uu joogay magaceeda hadday tahay heer qaran oo dowladda dhexdeeda ah iyo hadday tahay heer caalam meeshay gaarta waa la ogyahay waxna ma taro dulmiga iyo xasadka wuxuu tara lama ah dhowr maarkii baan galnay saxiixayaashaan ka mid noqonnay waxaan noqonnay dadka laga weydiiyo masiirka dadka soomaaliyeed wax laga weydiiyo ayay galmudug noqotay waxa weeyaan dadka
galmudug markii la dhisay anigu hadda waxba taaban maayo laakiin waxaan ognahay rikoorka ku haynaa 452 arday inay wax dhiganayso maantana waxa weeye waxa laga hadlayaa 30 kun ku dhawaad 2 jaamacadood 4 dugsi sare iyo dhowr iyo 30 ilaa 40